محمود عبدي رضل مريها جود هيدا دولستا إياها ودا سوماليلان ومانتا ورباهينتا هرقيسا كلها الله وحاو شاقي إن قرومادا ديارادها سوماليلان عايسيد عادية وشاقين أيان ماركا لغريبا ودامدي يقو أي كممنوعين إن دولماديدو دو أي كسو الدقان صوابا لحريرا عدور كورونا فيروسا وغي وحانو دولدا فدراليغا سوماليا وغو باقاي إن أي لاليسو درس نمدا واسدو هذا الكوديغا maanta war saxaafadeedkan waxaan ugu talagalnay inaan ka hadalno airspace-ka Somaliland waxaan maanta halkan aan maariyay guud hay'adda duulimaadka iyo madaarada aan ka sheegayna airspace-ka Somaliland waxa uu xora Somaliland cid kale loo wadaagtaan ma jirto sida aan xeebaheedana mas'uulka iga tahay dhulkeeda ay uga tahay xuduudeeda ay uga tahay waxaa wax ka dhaxeeya adduunkan international-ka ah oo xitaa innaka iyo jaararkeena iyo Soomaaliya iyo inagu xidha arintaas oo imika ka muuqata Muqdisho inay isku daysay inay khalkhal geliso waxaan u sheegaynaa adduunka oo dhan iyo diyaaradaha yimaada Somaliland inay Somaliland ka mas'uul tahay oo kaligeed iska leedahay ayada nabadgelyadeeda ka mas'uula inay oqolaato Somaliland diyaaradda degaysana hadduna maareeyo oqolaan ma soo degayso hawada anagu ma doonayaan xubno hadaa yiraahdo hawada Somaliland maanta inay soo iman oo loo taabgelin kaliya iskale waxaan u sheegaynaa adduun weynaha iyo dadka oo dhan inaynu jaarnimada waanu ilaalinaynaa wada socodka adduunka khalkhal gelin may لكن الشركات اللي على الشركات دي دوني سواي أفرنتها هذه أنا سيقولي أنا كوجوتين وواحد ارتقى نسيديني وعذر كان دائما كان قبقى نوض كان برهنا نسيدين marka intaas oo maldoonaya meesha ka sheego maariyuhu ma ogolaan in wax su'aalo ay warbaahintu weydiiso hadalka maarayaha ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ay maanta soo caga dhigatay diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka soo duushay magaalada Addis Ababa taas oo muddo 2 maalmood oo hore ah baajisay socdaaladii ay ku iman jirtay magaalada Hargeysa sidoo kale hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyana maanta ay sheegtay in muddo 2 maalmood ay fasaxday duulimaadyada caalamiga ee imanaya garoomada Soomaaliya si ay u soo daadgureeyaan dadka Soomaaliyeed ee ku xaniban meelaha ka baxsan wadanka waxaana ay sheegtay in muddada 2 maalmood marka la dhaafo ay xidhan yihiin dhammaanba duulimaadyada caalamiga ee soo gala Soomaaliya Xasan Galayd wararka Kibel Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida